بجاكو سيدغيو wuxuu habeenkii dhaweey yiri wasiirka gurigiisa la weerareen uma maqal buuri waxaan guri ku dhow barfas ka dhacday guriyahan wareysanaya oo TV-gan u shaqeeya Star wuxuu soo dhigay xabadii gidaarka ku dhacday dhaaftay albaabka ku dhacday dhaaftay guriga gudihiisa ku taal wasiir dawladda wasaaradda amniga la soo dhigay guri agtiisa guriga wasiirka guri agtiisa ay xabad ka dhacaysa وانا waxa lagu leeyahay wasiir dawladda wasaaradda amniga horta xabadaasi isaga inooga jawaabi guriga agtiisa ayada ka dhacday maxamed muuse ayaa looga fadhiyaa inuu ka jawaabo wasiirkii arrimaha gudaha waa joogaan marinaya Hargeysa faratoon xilligii baa joogay wasiir dawladda ma banaanayn baynu ka hadlo wasiir dawladda inuu ka hadlo arrintaas marka xagga sharciga iyo nidaamka la eego wax u taaliba ma aha way wasiirkii wasaaradda ba joogay qaranka Soomaaliland iyo shacabka waan ka tacsiinina arrintaas waxay arrin foolxun cid ku kacbayna waxaan leenahay waa cid qarannimada Soomaaliland wax u dhimaysa inagu ma ogin wasiir toos loo weeraray guriga agtiisa la weeraray guriga agtiisa la weeraray waxay ahayd wasiirku inuu tuso saxaafadda uu yiraahdo waa kan guriga la weeraray dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha amniga oo xil saaran gaar ahaan taliyaha booliska taliyaha sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan u sheegaynaa falkaas cidii ka dambeysay in ay sharciga hor keenaan kulka wasiir la weeraray waxaray ma jirto amnigiina wuxuu noqday dab dhaxmooday amnigii Soomaaliland maanta wixii ka dibadeed wuxuu noqday dab dhaxmooday ayaan leeyahay marka waxa weeyaan ninkan wasiirka hadlay la leeyahay ninkan amniga u qaabilsan kolkan hadalkiisii tixraacnay anagu qorshe isagaaba ka dambeeyaan leenahay isagaabaan uga daba fadhinaa oo leenahay war waxan wasiir lama weerarina agtiisa la isku ayadana leedahay warada ka dambeeyay ya kan wixii ka dambeeyay qorshaha adigu ka dambeysay ayaanu leenahay waa wax cad wax agtiisa lagu dagaalamiyay ma ahayna wax toos loo soo weeraray